السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan idiin wadaa qisooyinka salawaadka nabiga caawa sallallahu alayhi wasallam. Waxa weeye 21 qiso oo aad u kala dardaran gaagaaban. Marka qisada koowaad gabadhan waxay tiraahday assalaamu calaykum sheekh bakar. qisooyinkan waxaan ka soo qaatay sheekh bakar ismaaciil oo carabi ku soo qoran, marka shal uu soo geliyay soo daawada qofkii carabi yaqaano. marka qisada koowaad wuxuu yiraahday gabadha waxay tiraahday assalaamu calaykum sheekh bakar. dhakhaatiirta oo dhan waxay isku raaceen inaan uur qaadi karin muddo 18 sano ah. wax kasta oo ay sheegaan oo sabab u noqon kara inaan uur lahaado waan sameeyay, laakiin wax natiijo ah ma arag. markii aan muuqaalkaagii daawaday waxaan go'aansaday inaan maalin kasta ku saliyo nabiga sallallahu alayhi wasallam 5,000 ilaa 10,000 oo jeer. ilaahay fadligiis muddo 3 bilood gudahood ayaan uur ku qaaday. haddana waxaan leeyahay wiil. gabadhan 18 sano ayay sugaysay in ilaahay wax siiyo oo dhakhtar kasta tagtay oo meel kasta ay tagtay, laakiin markii ay bilowday salawaadka nabiga sallallahu alayhi wasallam 3 bilood gudahood ayay uur ku qaaday. siiqada maysan sheegin ee akhrisay. qisada labaad, gabar ayaa tiri assalaamu calaykum sheekh bakar, waxaan arkay riyo. qof ayaa igu yiri haddii aad rabto in ducadaada la aqbalo istighfaarta aad wado ku dar wardiga salawaadka nabiga sallallahu alayhi wasallam. aniga run ahaantii waxaan samayn jiray istighfaar aad u badan. waxaan hore ugu arkay furfurnaan waaweyn ee nimco, laakiinse tan iyo markii aan bilaabay inaan ku daro wardiga salawaadka nabiga sallallahu alayhi wasallam oo markii aan joogteeyay labadoodaba ducadeedii waxay noqotay mid ka sii daran oo ka dhaqso badan sidii hore in la ii aqbalo. allahu akbar. marka waxay tiraahdaa qoftan aniga istighfaar kaliya samayn jiray, laakiin markaan salawaadka ku daray si degdeg ah ayaa lagu aqbalay ducooyinkaygii. qisada saddexaad, qof ayaa yiri assalaamu calaykum, dadku u sheeg in salawaadka qaabka caadiga ah uu leeyahay saameyn aad u xoog badan sida salaatul ibraahimiya oo kale. wallaahi anigu hore waxaan u badin jiray dikriga Allah subxaanahu wa tacaala, waxaan maqli jiray fadliga salaatul ibraahimiya, laakiin aad bay igu cuslayd. markii aan qisooyinkaagii dhageystay waxaan go'aansaday in nabiga sallallahu alayhi wasallam ku saliyo qaabka caadiga ah, siiqada caadiga. wallaahi wax kastoo aan damco way ii rumoobeen. ducooyina la ii aqbalay, waan faraxsanahay. wax kastoo la ii aqbalay, nasiib wanaagsanna waan helay. qisada afaraad, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. ilaahay fadligiis waxaan ku dhaganaa salawaadka nabiga sallallahu alayhi wasallam muddo ka badan 10 sano. wax kastoo aad sheegaysaa waa run. faqri zaa'id ah ayaan ku jiray, noloshaydana walbahaar iyo musiibooyin maba ka dhammaan jirin. laakiin tan iyo markii aan qabsaday salawaadka nabiga sallallahu alayhi wasallam ma arag faqri, mana arag walbahaar. qisada shanaad, haweeney ayaa waxay tiraahday assalaamu calaykum, waxaa jirta macalimad la yiraahdo Balqiis oo samaysa tartan la mid ah kaaga oo ku saabsan salawaadka nabiga sallallahu alayhi wasallam qaabka caadiga, gaar ahaan maalinta jimcaha. iyadu run ahaantii tartankeedu wuxuu ahaa 100,000 oo jeer maalintii, laakiin anigu sababta oo ah xanuunka hooyaday iyo mashquulka aan kula jiray waxaan samayn jiray 5,000 oo jeer maalintii oo keliya. hooyaday ma socon karin, markaas waxaan ku celinayay salawaadka nabiga sallallahu alayhi wasallam anigoo u niyada ku hayay inay socoto oo cagaheeda ku istaagto. waxaan tagnay isbitaallo iyo meelo badan oo dhakhaatiir joogaan, daaweyn badan ayaan galnay, qaliin badan waa lagu sameeyay, laakiin wax natiijo ah ma helin. wallaahi jimcihii markii aan ku mashquulay salawaadka nabiga sallallahu alayhi wasallam, markii ugu horreysay ee maamaday socoto waxay ahayd subaxdii fajarka ee maalintii xigtay oo ahayd sabtida. alxamdulillaah, iyadii oo gebi ahaanba aan socon karin waxay noqotay mid dhaqdhaqaaqi karta. si degdeg ah ayaa ilaahay ugu soo jawaabay. jimcihiiba waxay samaysay salawaad, maalintii ku xigtana oo sabtida ahayd fajarka way soconaysay. subxaan allah. qisada lixaad, qof ayaa wuxuu yiraahday assalaamu calaykum, gabadhayda waxaa ku dhacday cudurka kansarka. cudurkani wuxuu ahaa mid ku faafay jirkeedii oo dhan. waxay ahayd sariir ma hadli karin, biyo unbay afka saari jirtay. dhakhaatiirtuna waxay ugu yiraahdeen guriga u qaado, waayo cimrigeedii wuu dhammaaday, arrintu way dhammaatay. subxaan allah. ilaahay unbaa og, ma ogtahay taas. waxaas dhakhaatiirta waa been. dabcan
waa qiyaasi kartaa murugada qalbigayga waayo gabadhayda waxay jirtay 17 jir oo keliya markaas ayaan go'aansaday inaan qabsado salawaad nabiga sallallahu alayhi wasallam waxaanan ka codsaday gabadhayda inay iyadana ku saliso nabiga sallallahu alayhi wasallam intii ay fariisan karto ilaahay fadligiis 5 maalmood oo aan ku adkaysanaynay salawaadka kadib waxay bilowday inaan aragno waxyaalo badan maxaa ka mid ahaa waxay bilowday inay wax yar cunto inay wax yar cabto inay hadasho wax yar xitaa musqusha ay aadi karto si tartiib caafimaadkeedii u soo laabtay alxamdulilah markii dambe waxaan geeyay dhakhtarkii wuu naxay markuu ogaaday inay gabi ahaanba bogsatay kansarkii oo ilaah caafimaad ka siiyey sanadkan waxay dib ugu noqonaysaa fasalkii 3aad ee dugsiga sare muhiimadda taas oo kaliya ma aha waa in ilaahay uu qofka caabugsiiyey qaab ka dhigay qof kasta qisadan qof kasta basic labana waxay leedahay qisadan qof kasta oo maqlamii aaminayo gabadhan jirkeeda inuu ku faafay kansar laakiin subxaanallah tani wallaahi waa wax dhacday tirada oo gabadheedina ku dhacday marka qisada kaleeto oo 7aad gabar ayaa waxay tiraahday assalaamu calaykum ramadaankii tagay maya kii hadda ma ah kii ka horreeyay wax wanaagsan oo aanan samayn ma jirin waxaan sameeyey wax walbaba istighfaar quraanka inoo dhameeyay duco dhammaan meelaha ducada lagu aqbalo dhan sadaqo qiyaamul leyl laakiin wax badan oo natiijo ah maanan arag markii aad samaysay tartankii salawaadka oo nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam shiiqaanaytu bakar ismaaciil ayaa wuxuu sameeyey tartan ah 100,000 oo jeer maalintii inuu jimcaha la akhriyo oo qaabka caadiga ah siiqada caadiga oo salawaadka marka gabadhan waxay tiraahday markii aad tartankan aad keentay waxaan go'aansaday inaan sameeyo wallaahi ayay tiraahday 7 gudihiis hal wii gudihiis ilaahay wuxuu ii aqbalay wixii aan doonayay arrintaasi waxay nolosheeda ku ahayd walwal aad u weyn waxaan ku sugnaa cabsi iyo culays daran laakiin ilaahay fadligiis hal wii oo salawaad qaabka caadiga ah oo kadib waa siiqada gaaban ilaahay walwalkaasi dhan waa iga furfuray alxamdulilah qisada 8aad qof ayaa wuxuu yiraahday assalaamu calaykum waxaan la kulmay musiibo ka mid ah musiibooyinka ugu waaweyn ee qof maqlo noloshiisa musiibo qoys hamigayga oo kaliya wuxuu ahaa in ilaahay ii naxariisto waayo gabi ahaanba waan quustay in xal loo heegi karo ma umaleynayna arrinteyda markii aad nagula talisay inaan badino salawaad nabiga sallallahu alayhi wasallam qaabka caadiga ah ugu yaraan 100,000 oo jeer maalintii waan sameeyey runtii dhibaatadu waxay ku xalismatay qaab aan maskaxdeeda qaadan karin wallaahi xitaa maskaxdeeda kuma jirin in ay xal lahaan karto arrintan laakiin salawaad badan darteed ilaahay dartii waa ii furfurantay arrintii oo dhan qisada 9aad gabadhan ayaa waxay tiraahday assalaamu calaykum waxaan ahaa gabar soo martay nooc kasta oo faqri ah waxaan xiran jiray dharka ugu liita waxaan cuni jiray cuntada ugu liidata walaalahey qaraabadeeda qoyskeyga saaxiibadeed dhammaantood way iga cagijiidi jireen inaan banaanka isku raacno sababtoo ah dharkeygii iyo faqriga iga muuqda iyo bahdilka iga muuqda gabdhuhu way isbarbar dhigaan markasta laakiin aniga waxaan dareemi jiray in aan qof kasta ka hooseeyo xitaa waxaan karaahsaday hooyaday inay guursatay aabahay subxaanallah inkastoo aabahay uu yahay nin fiican laakiin faqri buu ahaa markaas waxaan dhihi jiray maxay ka doonto nin faqri ah markii aan bilaabay inaan ku saliyo nabiga sallallahu alayhi wasallam qaabka siiqada gaaban iyo salaatul ibraahimiya oo isku daro waxaa arrintaas u sheegay hooyaday aabahay iyagana inay nala sameeyaan si aan arrintan ilaahay aan u barino annaga dhammaanteen waan wada bilownay salawaat nabiga sallallahu alayhi wasallam wallaahi ma sheegi karo wixii dhacay kadib waxaan helay shaqo dukaan dharka dumarka lagu iibiyo waxaa jiray wax la yiraahdo bonus ama 100% iibka in lacag fiican inaan helo wax kasta aan iibiyo inaan lacag ka helayo muddo 2 ilaa 3 bilood gudahood waqti aad u gaaban nolosheedu gaba ahaanba way isbedeshay dakhligaygu wuxuu noqday mid la mid ah ama ka badan 2 ilaa 3 jeer dakhliga aabahay soo gali jiray aabahay isaguna sidaas oo kale ayuu ilaahay ugu furfuray nimcooyin hadda waxaan xirtaa dharka ugu fiican waxaan cunaa cuntada ugu fiican nolosheeduna gabi ahaanba way isbedeshay qaraabadii iga xishoon jirtay inay meel ii raacaan maanta iyaga soo wacaya ay dhahayaan kaala israacna banaanka subxaanallah qisada 10aad qof ayaa wuxuu yiraahday assalaamu calaykum waxaan lahaa hami qalbigayga ku jiro oo u ekaa wax aan suurtagal ahayn
markii aan maqlay inaad sheegtay riyo lagu arkay in salaatul ibraahimiya hal mar ay la mid tahay 10 jeer oo salawaadka caadiga ah waxaan go'aansaday inaan hal toddobaad gudaheeda ku akhriyo 10,000 oo jeer oo salaatul ibraahimiya si ilaahay igu furfuro walwalkii haye alxamdulilah ilaahay wuu iga furfuray qisada 11aad gabar ayaa waxay tiraahdaa assalaamu calaykum waxaan lahaa rabitaan qalbigayga ku jiray wuxuuna u ekaa wax aan suurtagal ahayn inuu rumoobo laakiin markii aan maqlay waxaan go'aansaday markii aan maqlay adiga muuqaalkaagii aan daawaday waxaan go'aansaday inaan ku dhigo salawaad nabiga sallallahu alayhi wasallam anigoo yaqiin buuxda la imanaya alxamdulilah hamigaygii wuu ii rumoobay subxaanallah ilaahay ma dayaco addoon isaga u soo qaxay oo u orday qisada 12aad nin ayaa wuxuu yiraahday assalaamu calaykum waxaan ahay nin ku nool Sacuudiga muddo 10 sano ayaan ku noolaa waxaa muddo dheer ku duceysan jiray ilaahay inuu isiiyo shaqo gaar ah oo isha aan ku hayay waayo mushaharkeeda aad buu u sareeyay halka mushaharkeyga uu ka ahaa 2,000 oo riyaal oo wax badan ay taraynin markii taladaadii aan raacay waxaan go'aansaday inaan sameeyo wardi istighfaar ah iyo wardi salawaad aan isku daro wallaahi isla bishii aan bilaabay dhamaadkeedii ilaahay wuxuu ii aqbalay wax kasta aan rabay shaqadii aan muddo badan sugayay oo 10 sano aan rajeynayay ayaaba ii timi iyadoo socota ilaahayna wuxuu i siiyay lacag aan ku iibsado gaari qisada 13aad gabar ayaa waxay tiraahdaa assalaamu calaykum waxaan ku duceysan jiray inaan galo kulliyadda caafimaadka mana ahayn ramadaankan kiina dhaafamay kii ka sii horeeyay ayuu ahaa waayo xilligaas waxaan ku jiray fasalka 3aad ee dugsiga sare waxaa aad u badin jiray salawaadka nabiga sallallahu alayhi wasallam qaabka caadiga ah ramadaankan hadda waxaan ahay sanadkii koowaad ee kulliyadda caafimaadka ilaahay wuu ii sahlay qisada 14aad qoftan waxay tiraahday waxaan lahaa deyn igu taagnin muddo 3 sano waxayna ii muuqatay in wax aan bixin karin inay tahay aad iyo aad ay culays ugu eed wayna tiro badneed markii aan bilaabay inaan channelkaaga daawado waxaan go'aansaday inaan ku badsado salawaad nabiga sallallahu alayhi wasallam habeen iyo maalin anigoo adeegsanaya salaatul ibraahimiya ilaahay fadligiisa muddo 1 bil gudaheed deyntii waa la iga bixiyay alxamdulilah okay waxaa inoo hartay 6 qiso kale soo dulqaata laakiin walaahi qisooyin cajaa'ib la weeye qisada 15aad qof ayaa wuxuu yiraahday waxaan rabaa inaan ku bishaareeyo shalay laga bilaabo salaada maqrib ilaa cisha waxaan ku mashquulay salawaadka nabiga anigoo adeegsanaya salaatul ibraahimiya anigoo dareensan sidii inaan nabiga sallallahu alayhi wasallam horteeda u joogo daqiiqado yar kadib kama soo wareegin ilaa uu ii yimid wax la mid ah fariin ama wicitaan shaqo ku saabsan arrintii aad u rabay hadiyad gaar ayay ii noqotay waxaan doonayay wayna ahayd oo rabe alxamdulilah mid ka mid walaalahey ayaa ii soo iibiyey hadiyad ahaan waxa aan rabe anigoo xataa aan ka codsanin qisada 16aad gabar ayaa waxay tiraahdaa assalaamu calaykum waxaan soo iibsaday dhul si aan u dhisno anaga faamil ahaan laakiin dhibkan haystaa waxay ahayd suurtagal ma ahayn inaan dhulkaas dhisno maxaa yeelay lacag la'aan baana haysay wax kasto waxay u muuqdeen inaan anaga bixin karin lacagtaas markii aan si kadiisa kuu daawaday oo channelkaada waxaan go'aansaday inaan ku qabsado salawaad nabiga sallallahu alayhi wasallam carabkayga muddo 2 bilood oo kaliya ah ayaan ku adkeysanayna anaga faamil ah salawaadka ilaahayna wuxuuna siiyay lacag aniga iyo ninkayga gurigiina waa dhisnay hadda aan kula soo hadlayo waxaan dhex fadhinaa gurigii aan dhisanay qisada 17aad qof ayaa wuxuu yiraahday assalaamu calaykum salawaadka nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay fadli badan jibcihii tagay waxaan ku salinayay nabiga sallallahu alayhi wasallam 4,000 oo jeer anigoo niyad ku haya in ilaahay ii fuliyo arrin gaar ah wallaahi 2 maalmood kadib wixii aan rabay ayaa dhacay waxaan ku salinayay qaabka allahumma salli wa sallim ala nabiyina maxamed oo kaliya qisada 18aad qof kale ayaa wuxuu yiraahday assalaamu calaykum alxamdulilah muddo sanad ah ayaan joogteynayay salawaadka nabiga sallallahu alayhi wasallam 2,000 oo jeer salaada fajrka ka hor wallaahi ilaahay wuxuu ii fuliyay dhammaan hamigeygii oo dhan anigoo xataa duco gaar ah aan samaynin qofkan wuxuu leeyahay duco gaar ma sameeyo laakiin saliga un baan carabkayga ku hayaa tan iyo markii aan maqlay adigoo ka hadlaya salawaad nabiga sallallahu alayhi wasallam in loo dhigi karo halkii duco la samayn lahaa waxaan go'aansaday inaan sidaas sameeyo oo kaliya wallaahi dhammaan waxaan u baahnaayoo dhan run bay ku imaadeen xitaa anigoo duco aan samaynin intaas waxaa sii dheer waxaan helay raaxo nafsi ah dunadeydii oo dhanna way ii hagaagtay
dhibaatooyinkaygii oo dhan oo waa iga yaryaraadeen, culayskii oo nafsiyadka ahaana waa iga tageen. Waxaan ku salin jiray Nabiga sallallahu alayhi wasallam qaabka caadiga ah. Qisada 19aad nin ayaa wuxuu yiraahday assalaamu calaykum, waxaan ahaa nin qandaraasle ah oo yar, dakhligayguna aad buu u koobnaa. Waxaan bilaabay aniga markaan shaqaynayo oo mar kasta aniga inaan ku mashquulo salawaad Nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo istighfaar. Laga bilaabo sanadkii tagay ilaa hadda maanta account-kayga bangiga waxaa yaala 5 milyan oo gini. Intaas waxaa ii sii dheer dhul iyo guri oo Ilaahay igu hibeeyay. So Ilaahay nimco ayuu siiyay ninkaanito, laakiin maalin kasta wuxuu sameynayuu yiraahday maxaa la dhahaa salawaadka iyo istighfaar ayuu isku darayay. Qofka 20aad waxay tiraahday hore wax isoo doontay ama guur iga rabay ma jirin. Markii aan muddo ka fikirayay arrintan, Ilaahay fadligiis waxaan go'aansaday inaan badsado salawaad Nabiga sallallahu alayhi wasallam qaabka caadiga ah. Ilaahayna aad buu iigu furay jidka. Fursado guur oo badan ayaa ii yimid. Alxamdulillaah, Ilaahay wuxuu waafajiyay noloshaydii iyo waxbarashadeydii. Hadda waan guursaday, Ilaahayna wuxuu i siiyay saaxiibo wanaagsan, wuxuuna ii aqbalay ducooyin badan sanadkan gudihiisa. Qisadii ugu dambeysay, qofkan waxay tiraahday waxaan lahaa safar ayaan ku jiro oo muhiim ah, noloshaydana ayaan safarkaas ku xirnayd. Waxaan is iri intii aad jidka mari lahayd taleefon adigoo qabsan oo hadli lahayd, oo waxaa kuu fiican inaad taleefon iska damiso oo safarkan oo dhan aad carabkaaga markasta ku qoydo saliga Nabiga sallallahu alayhi wasallam ilaa meeshii aan ka gaaray. Wallahi inkastoo safarkaasi laga filay dhibaatooyin badan inaan kala kulmo jidkaas ama balaayo badan oo daran, Ilaahay wuxuu ii saqiray dadkii oo fiicnaana waan arkay. Arrintiina wuxuu ku dhamaatay si fudud. Marka sheekooyinka intaas way ku eg yihiin. Marka khayr aan soo ognahay. Salawaadka maanta waa Jimco, caawa waa Jimco, birta waa Jimco. Ha lagu dadaalo insha Allah. Idiin soo duceeya in muraadkayga Ilaahay ii sahlo. Idinkana waa idiin soo duceynaya. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.